muddo 6 sano ah ayaa waxa hooy u ahaa kursi yaalla koonfurta London. Dallad ayay maalintii qorraxda ka harsan jirtay iyadoo habeenkiina gabaad ka dhigan jirtay. Inkastoo barafka iyo dabaysha ka dhacaysa London aysan suuragal ahayn inay ka difaacaan, balse ugu dambeyntii horaantii bishan January ayay ku geeriyootay isbitaal ku yaala London iyadoo eensanaysa burukiito iyo xaalado caafimaad oo kale kuwaasoo ay sababeen banaanjiifka iyo barafka ku dhacay dusheeda. Waxa aan ka hadlayo waa hooyo Xaawo Cabdi oo dhawaan ku geeriyootay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Haddaba sidee ayay ku dhacday in hooyada Soomaaliyeed ay darxumadaasi ugu geeriyooto derbiyada London iyadoo aynu ognahay in London ay ku nool yihiin in ka badan 65,000 oo Soomaali ah. Warbixinteenan ayaynu ku eegi doonaa Allaha u naxariistee sida ay hooyada Soomaaliyeed aysan ugu suuragelin in ay hooy hesho. Fadlan u sheer garee saaxiibadaada una ducee inuu Alle u naxariisto hooyo Xaawo Cabdi. 6 sano ka badan ayay hooyo Xaawo Cabdi iyo wiilkeeda Muxyidiin Geelle seexanayeen kursi meel dariiq bannaan ah ku yaala koonfurta magaalada London. Ilaahay u naxariistee hooyada ayaa geeriyootay dhowr maalmood ka hor sababo lagu sheegay dhibaatooyin caafimaad oo ka soo gaaray bannaanka oo ay jiifanayeen iyo qaboobaha. Muddo 6 sano ah ayay Xaawo Cabdi iyo wiilkeeda Muxyidiin Geelle seexanayeen kursi meel bannaan ah yaalla oo ku taala koonfurta magaalada London. Hooyadaas ayaa si geeriyootay dhowr maalmood ka hor sababo lagu sheegay dhibaatooyin caafimaad oo ka soo gaaray bannaanka ay jiifanayeen. Dad badan ayay ka yaabsadeen markii ay go'aan ku gaareen in aysan ka dhaqaaqin meeshaas iyagoo dhagaha ka furaystay dhammaan yaboohyadii loogu soo bandhigay guryo ay degi karaan. Markii ugu horreysay hooyadan iyo wiilkeeda waxaa indhaha warbaahinta ay qabteen iyagoo muddo dibad jiif ahaa. Sanadkii 2017 qoraaga madaxa bannaan ee lagu magacaabo Tome de Castella ayaa ku baraarugay hooyadan da'da ah iyo wiilkeeda oo deganaa kursi ku yaala afaafka hore ee maktabadda Tootin. Waxa uu xilligaasi ogaaday in meeshaasi ay sii joogeen 2 sano ka hor markaasi. Sababta ku kaliftay in hooyadan Soomaaliyeed iyo wiilkeedu ay seexdaan kursiga ayaa waxaa lagu sheegay in saygeeda oo ay aad u jeclayd uu geeriyooday, iyadoo markii uu geeriyooday muddo 2 maalin ah ay guriga ku hayeen ilaa markii dambe ay ogaadeen deriska. Intaasi wixii ka dambeeyay Allaha u naxariistee hooyo Xaawo iyo wiilkeeda ayaa guriga laga saaray sida uu BBC-da u sharaxay wariye Cabdiqaadir Diinaar. dabayaaqadii bishii Abriil 2017 markii aan maamadaas iyo wiilkeeda ku booqday wadada la yiraahdo Tooting Broadway, halkaas oo ay muddo dheer joogeen. Waxa la sheegay ugu yaraan 3 sano inay waqtigaasi ahayd waqti ay halkaas ku qaateen. waliba sanadadaas ugu dambeeyay haddaad xusuusato 17kii iyo 16kii iyo 15kiiba aad iyo aad bay u qabobayd London oo qabowgii ugu darnaa baa soo maray. marka 3 sano muddo ah ayaa la sheegay halka inay fadhiyeen ama ku noolaayeen meel bannaan ah oo library horteeda dhowr meel horena laga soo kiciyay oo laga saaray. marka halkaas aan ku booqday xaaladeedu aad ay u liidatay. waa la hadlay, waxaan weydiiyay dhibaatada haysata, jawaab badan ima siinin. marka dhibaato weyn haysatay halkaas ku noolaayeen waana arrin xanuun leh oo muujinaysa mataqaanaa in wali ay jiraan dad Soomaali oo xaaladaas oo kale ku nool. geerideeda markaan maqlay runtii aad baan uga qaracmay. waxaan xusuustaa dhibaatada ay ku noolayd. waxa kaliya la fili karina waxay ahayd inay u dhimato qabowgaasi faraha badan ee ka dhacay London maadaama aan waxba laga qabanin xaaladeedii. Hooyo Xaawo Cabdi ayaa waxay ahayd hooyo naxariis badan oo aad u wanaagsan. Deriskeeda ay aad u jeclaayeen, qayb weyna ka qaadatay toosinta carruurta dayacan, iyadoo hadda qabrigeedu ay iibiyeen oo lacagtu ay ka bixiyeen gabar iyo wiil ay hore ugu soo qayb qaadatay korriimadoodii. Halkaas ay noogu eg tahay warbixintii aynu ku eegaynaa Allaha u naxariistee hooyo Xaawo Cabdi oo dhawaan dayac iyo darxumo ugu geeriyootay magaalada London. Fadlan walaal aan u duceyno hooyo Xaawo, sidoo kale u sheer garee saaxiibadaadu. Allaha u naxariisto hooyo Xaawo Cabdi.